Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa la xaqiijiyay in uu maanta ku geeriyooday magaalada London ee dalka Ingiriiska halkaas oo maalmihii la soo dhaafay oo ku xanuunsanayay. Geerida Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa waxa xaqiijiyay wiilkiisa Xaaji Maxamed Nuur Cadde isagoo oo sheegay in saakay 7 subaxnimo uu ku geeriyooday magaalada London. Labadii toddobaad ee la soo dhaafay ayaa waxa uu la jiifay cudurka coronavirus isagoo ku jiray isbitaal ku yaala magaalada London ee dalka Ingiriiska isla markaana lagu baxnaaninayay xaaladiisa caafimaad. War-saxaafadeed oo soo saaray wiilkiisa Xaaji Maxamed Nuur Cadde ayaa waxa uu ku sheegay in meydka marxuumka lagu aasayo magaalada London si waafaqsan shariicada Islaamka. Mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa si wada jir ah u tacsiyay geerida ku timid Allah u naxariistay Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa u tacsiyay shacabka Soomaaliyeed geerida ku timid Allah u naxariistay Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Mudane Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde. Madaxweynaha ayaa xusay doorkii weynay ee uu ka soo qaatay Allah u naxariistay marxuumku dib u soo kabashada dalka isagoo waqti adag u istaagay in uu ka shaqeeyo dawladnimada iyo samata bixinta ummadda Soomaaliyeed. Inaga oo garowsan dadaalkii uu marxuumku ku bixiyay dalkiisa iyo dadkiisa waxaanu ku dhawaaqaynaa baroordi qaran oo 3 maalmood socod doonta iyadoo hoos loo dhigayo muddadaasi calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si aynu u siino Ra'iisul Wasaare Nuur Cadde Allah u naxariistay maamuuskii qaran ee uu naga mudnaa ayuu yiri madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Ra'iisul Wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu yiri waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo qoyska uu ka baxay Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka marxuum Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo ku geeriyooday London. Waxaan Allah uga baryayaa in uu naxariistii janno ka waraabiyo ehelkiisana uu samriyo iimaan eebba ka siiyo. dhanka kale madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka tacsiyay geerida ku timid Allah u naxariistay Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo ku geeriyooday magaalada London. Madaxweynaha ayaa tacsi u diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday Allah u naxariistay Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya. Madaxweyne Waare ayaa sheegay in marxuumku uu door weyn ka soo qaatay dawlad dhisidda Soomaaliya iyo horumarka hadda ay haysato dawladda Soomaaliya. Ugu dambeyntii madaxweyne Waare ayaa Allah uga bariyay marxuum Nuur Cadde in uu jannatul firdaws ka waraabiyo. Allah u naxariistay Nuur Xasan Xuseen oo ku magac dheer Nuur Cadde waxa uu dhashay 16 Febraayo sanadkii 1937 waana Ra'iisul Wasaarihii 12aad ee taariikhda soo maray Soomaaliya. Nuur Cadde waxa uu shaqadiisii ugu horeysay uu qabtay oo ka bilaabay qaybta customka oo uu sarkaal ka noqday sanadkii 1958 2 sano ka hor madax banaanida Soomaaliya waxaana uu ka mid noqday saraakiisha booliska caalamiga ah ee loo yaqaan Interpol. Allah u naxariistay Nuur Cadde waxa tababar ciidan oo dibadda ah u diray madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Barre kadib markii uu soo dhameystay tababarkaas waxa uu daraasayay kuliyadda sharciga ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyo iskuul lagu magacaabo Fiscal Law oo ku yaala magaalada Rome ee caasimadda dalka Talyaaniga. Kadib dhicitaankii dawladdii kacaanka sanadkii 1991 waxa uu noqday xogayaha guud ee ururka Bisha Cas ee Soomaaliya. Waxa uu qayb ka noqday wixii intaas ka dambeeyay dawladihii dalka soo maraya 22 November sanadkii 2007 madaxweynihii dawladii ku meel gaarka ahayd ee lagu soo dhisay Kenya Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa uu Ra'iisul Wasaare u magacaabay Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde kadib markii uu iscasilay Ra'iisul Wasaare Cali Maxamed Geedi 29 Oktoobar isla sanadkaas. Nuur Cadde waxa uu soo dhisay xukuumaddiisa isaga oo codka kalsoonida ka helay baarlamaankii ku meel gaarka ah waxaana uu waqti kooban kadib ku dhawaaqay xukuumadda ka kooban 73 xubnood 30 wasiir 10 wasiir dawle iyo 30 wasiir ku xigeen. Allah u naxariistay Nuur Cadde waxa uu ka soo qayb qaatay wada hadallo dhex maray khilaafaad u dhaxeeyay madaxdii Soomaalida ee xilligaas taagnaa.
khilaaf xooggan ayaa soo kala dhex galay madaxweynihii xilligaas ee dowladii ku meel gaarka ahayd Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf waxaana xusid mudan in khilaafkaasi xoogganaa ee dhex maray Nuur Cadde iyo Cabdullaahi Yuusuf oo sababay in Cabdullaahi Yuusuf xilka isaga oo xilhayntiisa ay ka dhiman tahay 8 bilood xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa uu qabtay sanadkii 2007 waxaana uu baneeyay sanadkii 2009 kadib markii Jabuuti lagu soo doortay madaxweynihii dowladii ku meel gaarka ahayd Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo isna ra'iisul wasaare muddo kadib u soo magacaabay Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake xildhibaan dalxa oo kamid ahaa madaxdii ay isla soo shaqeeyeen Nuur Cadde ahayna xilligaasi gudoomiye ku xigeenkii baarlamaankii dowladii ku meel gaarka ahayd ayaa ka waramaya waxa uu ka garanayo Allah u naxariistay Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde asagoo ra'iisul wasaare ahna halkaasi asagana madaxweynihiisa xasilay oo aan isagana markaasi ka lex jeclaysanin inuu maartay sii hayo oo shaqada madoobo oo ku sii meel gaar uu noo yahay gudoomiye baarlamaan oo anigana ku xigeenkiisii gudoomiye ku xigeenkii koowaad aan ahay inta waxaanu ahayn runtii dadkii markaa anaga laftirkeena taariikhdaasi ilaahay maartay na haleeshiyey inaan dhinaca samaa oo aan u dhaqaaqno oo aan dib u heshiisiin ogolaano oo aan maartay anagoo dowlad ku meel gaar ah oo aan haysano ictiraafkii dowladnimo iyo iyagoo maxaakiimtii ayagana markaa awoodoodii aan la dhayalsan karin dowlad oo midaysan oo markaasi oo xukuuma itilaafiya ama dowlad oo maartay wanaag ah inaan maartay sida aan ku dhisano oo 275 oo ku meel gaarka ee dowladii federaalka markaasi ahayd iyo 275 oo maxaakiimtii oo iyada ahayd oo haddana tanaasulkeeni uu gaaray marka ilaa madaxweynihii haddana ay maxaakiimtii Sheekh Shariif oo asaga uu waday annagaan iyaga siino oo ra'iisul wasaarihii iyaga ay keenaan oo Umar Cabdirashiid uu noqdo oo Shariif Xasan ra'iisul wasaare ku xigeen uu noqdo iyo wasiirul maaliya inta badan ay ahaadaan maartay dadkii markaa inta nasiibka u heshay ama key ministerskii aan noqdaan ama hogaankii markaasi wadanka horkacayay uu haddana mar kale uu gacanta maartay annaga nimankii isaga Nuur Cadde Allah u naxariistay iyo dhinacii baarlamaanka oo xukuumadda iyo marka la isku daro annaga oo aan gudoonka u ahayn ay maanta haddana in xamar mar kale in ay dowladda uu isagoo madaxweynaha haddana oo Shariif Xasan iyo maartay aan iraadish Sheekh Shariif ay ku yimaadaan maartay dagaalna uu ku qabsado iyo marka intii kale ay haddana